waqti dhow kadib waxaa bilaaban doona dabcan howlgalladii waaweynaa waxaa la rabaa kaalintiin inaad ka qaadataan u tallaabsataan oo aad u tagtaan waxaa la rabaa howlgalladaas inaad u diyaar garowdaan qaybta 12aad subax wanaagsan bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku faraxsanahay dabcan maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan soo hor istaago in aad noqotaan ururka taliska qaybta wax ciyaar ma inaad noqotaan kadib inaad sii ahaataan wax ciyaar ma waa mas'uuliyad culus waaye waxaana ku faraxsanahay markasto inayna soo gaarayso amaantiina iyo dadaalkiina iyo inaad ka soo baxdeen oo aan magacii qaybta aad qaadeen meel kastana aad taagan tihiin adinkoo wakiil ka ah ama adinkoo matalaya qaybta 12aad fursad xaaladeeda wadata waaye waxaan rabaa markuu ugu horeysan inaan kaga mahad celiyo dadaalkiina iyo waajibaadka ee aad soo gudanayseen iyo diyaarsanaantiina u diyaarsan tihiin gudashada waajibaadka qaran qaybta 12aad qaybaha ugu muhiimsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku jirta sidoo kale waa qaybta xaqiiqada marka laga hadlo qaybaha ugu dadaalka badan waa qaybaha kale maalmahan looma direenin area ka baxsan aag mas'uuliyadoodkooda looma direen laakiin qaybtan waa qaybta u taagan aag mas'uuliyadeedka ka sokow inay intay xuduudeeda ka tallaabdo ay aag mas'uuliyadeedka qaybaha kale ee gacan siiso taasna wuxuu macnaheedu yahay in waajibaadka qaybta ama waajibaad gudashadeeda inta la rabay iyo ka badan ba inuu yahay dadaalkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa idin og yahay waxaan kaloo rabaa inaan kaga mahad celiyo howlgalkii ugu dambeeyay iyo dagaalkii ugu dambeeyay iyo qasaaraha cadawga gaarsiiseen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu idinka ajir siiyo annagana abaalmarinteeda insha Allah waa naga imaan doontaa marka waxaan rajaynayaa insha Allah waqtiga soo socdana in magaca qaybta saa kor ugu qaadeen in meeshiisa iyo meel ka sii sareysabo ku sii hayn doontaan hadduu Ilaahay idmo dadaalkii